kombiyuutarka wax ku akhriya kama qaadaan aragtida fogaan ama gaabni cusub oo uu soo saaray dhakhtar xagga indhaha ah oo lagu magacaabo Pascal Parian oo u dhashay dalka Faransiiska. Waxa uu leeyahay in dadka caado ka dhigta in kombiyuutarka saacado badan hor fadhiyaan in ay ka qaadin karin cudurrada dheer iyo mid gaaban. Hadalka dhakhtarkan waxa ay meesha ka saaraysaa xanta ama hadalhaynta dadka badani ay rumaysan yihiin in kombiyuutarka uu dadku indhaha tiro. Dhakhtarka waxa uu sheegay in ay macquul tahay in qofku dareemo daal indhaha ah oo qalala mararka qaar in uu dareemo indha xanuun, laakiin arrintaasi xiriir lama laha kombiyuutarka uu leeyahay. Dhakhtarka Pascal waxa uu leeyahay waxaa habboon in uu dhakhtarka u tago haddii uu qofku isku arko indha xanuun si loo ogaado dhibka halka uu ka jiro, balse aan eedda dusha looga tuurin ama lagu seerin ama loo eedeynin kombiyuutarka.